aan ku oran lahaa maanta nin weyn bat 80 jir bat haddaan ka badnayn inta adiilka ka sokeynaysa ilaahay baa wala wada dhimanaya laakiin goor aad dhiman doonto ilaahay baa laakiin inta aad sariirta ka sokeynaysa ma badna kullee badaadii ninku markuu weynaado u dhacay baad ku dhowday caruurtaada ah inamadaada maanta wadanka jooga wuxuu baad kaga tagaysaa inamada kale ilmaadeerkiina wadanka jooga haddaad inamadaada godob u samayso oo ilmaadeeradooda aad wada xidho inamadaada ayaa tol noqonaya bad sameeyaan bay noqonayaan inamadaada misabar oo kan yaani inama Soomaaliyeed oo reer Soomaaliyeed oo Hargeysa joogoonaan ahani waar inamadaada darka u tahay in walba aad ku hoysay ee xidhan iska soo daa dadka kalena wixii alla wixii isku dhacday iska saamax nin maanta aanad Soomaaliyeed aanad ka oohin oo aanad libin ma jirto aniguna in baan ka tirsanayo maanta iska ka saamax waad iga heliso haddii ilaahay ku rooyahay sarkaalkii ninka wuxuu ku dhuftay soo xidhay ayaad xidhay oo ninka nabarka geystay maxaad xidhay nin wal aniga ku yaro intaas digiisad laakiin waxba xukuumaan qaadin waa maalin walba rakaaga helinaya waxaan ku leeyahay anigu waan iska ka saamaxa inamada ulmaadeerkana waxa wanaag hayn uma hayo waan madaxweyne inamada ulmaadeerkana dhisay inamada kale ilmaadeerkiina ku diray eeranka Maxamed Cabdi Eelig wuxuu leeyahay iska siita aabihina sanamtaad ku dhirigtay buu ku dhintay aduguna madaxweyne aad ku noqoto waa nasiib in isla maanta uu yahay adnaad madaxweyne tahay ma yahay maanta inaka dadeerka waa inaad madaxa u salaaxday inaad jeelka ku cisho ka yare kale aad dadeerka dhow tahay abtigana aad u tahay in abeesna iska siita umada kale waxa ay saacadeenaysa saamax inta ka hadhay waqtigaaga qof kasto maalin isku dhacday basaamax